بسم الله الرحمن الرحيم حرق عبد المالك runtii mar dhaweyd baan maqlay markii la xidhay dabadeed ayuu warkaasi soo gaaray waa xidhay ninkaasi ilaa haddana sababta lagu xidhay wax faahfaahina kamaayno mas'uuliyiinta booliiska oo isku dayay inaan arrinta wax ka weydiiyo la hadii wali iimay suurtagelin laakiin waan ogaan doonaa hadii la helaa sababaha loo xidhay maxamuudow gudoomiye sidaad la socoto Somaliland Soomaaliya waxay ka go'day 1991kii waxa la sheegaa in qofka xamar taga ama cid madax oo ka tirsan dawladda Soomaaliya cidii taageerta inuu xadhig mutaysanayo ma la is oran karaa Cabdi Maalig waxa laga raacay hadalkii uu BBC-da ka sii daayay ee ahaa waxaan burco uga imid taageerada madaxweyne Farmaajo isagoo kaliya tamaha runtii dadka Soomaaliya iyo doorashadii Soomaaliya ka dhacday runtii tagay wariyaal badan baa tagay oo Soomaaliland ka tagay dad kale oo siyaasiyiin oo way tagay runtii daneynay inay systemka ama nidaamka cusub ee laga ka dhismay xamar runtii ay ka qayb galaan maadaama doorasho ay jirtay saad la socotaan runtii dad magaca Somaliland sheegta ayaa ka tartamay oo xilaal ka qabto mas'uuliyiinka waliba golayaasha waaweynaa runtii ku soo baxay marka saxaafadda waxay ka mid tahay dadka halka tagay hiyiraaca runtii sabab ay u tageen aan la garanaynin iyagoo qaran Somaliland oo jira oo dhisan runtii ay halkan ku haystaan ammaana horumar ilaa hadda ku socda marka waxaan u arkaa dadka halka tagay ama wariyaal ha ahaadaan ama dad kale mas'uuliyiin ahaadaan ama dad xilal u doontaan ama dad shaqo u doontaan ahaadaan in ay yihiin dad aan ku qanacsanayn wuxuu Ilaahay siiyay oo ah ammaanka iyo nimcada maanta dadka ay u tagayaan runtii hadii la barbar dhigo Soomaaliland runtii ay in badan oo kamid ah dadka Soomaaliya degan ay oran lahaayeen yaa idin geeyay ama yaa idin rara Hargeysa ama gobolada Soomaaliland oo dhan markaan waxaan u arkaa dad qaldan oo runtii wixii lagu heshiiyay wixii dalkan loo soo marayba runtii baalmaray maxaad soo jeedinaysaa xukuumadda Somaliland ee xidhay wariye Cabdi Maalig Muuse Coldoon runtii sida aad la socoto xukuumadda Somaliland go'aankeedu waxa in dadka Soomaaliya taga ama arrimaha siyaasadda ka qayb gala ama si kale oo u taga runtii in ay ahayd demi laakiin intii wada hadalladu furmay runtii waxaad moodaa in arrintaas dabarka ay goostay oo ay dadkii runtii wada qaldan ay u fahmeen ama wada qaldan ay qaadeen taasna ay sahashay go'aankii xukuumadda runtii isu socodka ay ku furtay iyo in ganacsiga runtii laga wada shaqeeyo dhuumashooyin fara badan oo ku khuseeya go'aankii dabacsan ee xukuumadda runtii baa ooda ka qaaday oo furay wada ah in maanta dadkii ay xamar tagaan marka runtii waxaan u arkaa Cabdi Maalig oo kaliya tamaha wariyaal badan oo kamid ah Somaliland baa tagay xamar dawladda Somaliland way soo dhaweysay waxa ugu dambeeyay sida aad ogtahay warbaahinta axsaabta Somaliland maanta eedaha isku marineen oo ha waraysiyo laga soo qaaday mas'uuliyiinta Soomaaliya wariyaasha ka soo qaaday runtii waxay ahaayeen kuwa reer Somaliland oo halkaas tagay xukuumaddu way soo dhaweysay way saaciday Hargeysa joogan haddana xamar bay joogan mar iyo laba iyo saddex ma anagu sooljahan xukuumadda oo kala hadalay dhowr jeer in ay arintaas dabada furanay iyadu sababtay runtii ay wax ka qabato laakiin anu waxaan arkaa qaladka ugu weyn in ay xukuumaddu u sahashay Cabdi Wali iyo qeyrkiiba hadii aan xukuumaddu talaabo ka qaadin anu waxaan u arkaa Cabdi Maalig oo kaliya too la xiray inaanay xal lahayn xukuumaddu ay u cadaalad fasho dhammaan wariyaasha xamar tagay qaarkood iyadu ay saaciday qaarkoodna saas oo kale ma ka xidhiso waayo hadii ku hore la xidhi lahaa Cabdi Maalig muu tageen anu waxaan u aragnaa dabar ay xukuumaddu furtay oo ay ku qaldan tahay hadii aanay daba qabatayna runtii taa iyo tuka daranaba ay dhici doonto oo dadku ay tagi doonaan xamar iyo meel Somaliland dibindaabiyo dhibaato u wadaba waxaan u aragnaa oo ugu baqayna xukuumadda Somaliland boqol jeer baan kala hadalay in ay arinta talaabo ka qaado Cabdi Maalig iyo cidda kale qeyrkii arinta tagtay in sharciga la hor keeno laga qaado talaabo sharci oo qaranimada Somaliland runtii lagu difaaciyo waxaan u arkaa Cabdi Maalig runtii in talaabada uu qaaday ahayd mid qaldan suxufiyiintii kale xukuumaddu saaciidina runtii ahayn talaabooyin qaldan oo ay xukuumaddu runtii ku taageertay dad qaranimada Somaliland dhibaateeyay marka anigu go'aanka aan qaadanay Sooljan waxa weeyaan in aanu wixii saxaafada ee Somaliland ee tagay Muqdisho ee waliba sida qaldan u tagay ee bareerka waliba ninkii siyaasi noqonaya ee Somaliland ka tagay sida kuwa kale u tageen u xil doonteen in uu tagay laakiin magacii saxaafada Somaliland nisita oo xamar tagay Soolja iyo saxaafada Somaliland midna ma taageeriso